sibdaro kiiskaasi sidii maxkamaddu u riday looma fulin oo 5 wiilba waxaa lagu furtay lacag dhan $100,000 calaa shakhsi. soo noqod wanaagsan horta waa bahdi tusmo isku duuban hadda waxaan rabnaa inaan fiidiyogan aan ka bixino reaction waxaan ka hadli doonaa arintii caasho oo ka dhacday gobolka Mudug ama magaalada Gaalkacyo gabadh yar oo 10 jir ah baa waxaa kufsaday 6 nin oo rag ah 6daa ka ugu yar 20 buu jiraa kuwa kalena dadkasi waa 30 40 50 60 70 buu jiraa gabadh yar waxa la sameeyay waa la kufsaday kufsi wadareed baa loo geystay haba loo geystay talabaad waxay tahay qofkii waa la dilay iyadoo oo meedkeedii baa waxaa la soo hordhigay xaafadooda taasina waa lagu yaqaanaa gobolka Mudug ama Gaalkacyo minaha waa magaalo iska dulman oo waxay doonaan ka soo baxaan nin nabi sheegtaa ka soo baxay gabadh waa lagu dulmiyay horta Gaalkacyo ila iska dulman oo magaalo hawlaheedu iska fara badan yihiin haba ahaadee qoyskii dhalay caasho way qaxeen dawladda deegaanka Itoobiya Soomaalida Itoobiya oo qaxeen way soo noqdeen markii saxaafadda iyo dawladda Puntland ay soo kala dhex gashay raggii waxa la dhahay waa la xukumay 6 nin wuxuu dhahay inuu waaba ku faraxsanahay anigu waxa la yaabay qof intuu qof kufsaday hadana dilay anigu ma maleeyay sidaan aanay garsoorayaal baa u dooday lacag la soo siiyay bala sheekadii way socotay dawladda Puntland hadda waxa ay soo jeedisay waxay raggii waa la xukumay laakiin ilaa iyo hadda meel ay ku dambeeyeen haba la xukumay ma la dilay xabsi daayin ma lagu xukumay sheekadii anigu aqliyadayda way wareertay sheekadii meel ay ku dambeysay meel ay jirtay la ogaan waa bal hadda fiidiyowga ma eeganaa bal la daawada markaan ka aamusno xumaanta oo aan dabdaboolayno dambiyada waxaan aasaynaa xaqa laakiin waxaa dhici doonta inuu soo bixi doono xaqaasi isaga oo kunjibaaran markaan ciqaabi weyno ama aan banaanka keeni weyno dambiilayaasha inaga oo ku difaacayna ujeedooyin daciif ah maaha micnaheedu inaan difaacayno dambiilahaas oo kaliya laakiin waxaan baabi'inaynaa dhammaan aasaaska cadaaladeed ee jiilasha soo kacaya iyo kuwa haatan jooga waxa aan kaydsanaynaa cuqubada laga gelayo kuwa aan haysan awood ay ku soo dhacsadaan xaqooda maxaa helay cadaaladii maxkamaddu u xukuntay Caasho Ilyas Aadan haddii maxkamadda darajada koobaad maxkamadda darajada labaad iyo maxkamadda racfaanka ee Garowe ay dil toogasho ku xukumeen 3 nin ee Caasho kufsiga iyo dilka isugu daray maxaa is hortaagay kiiskii maxaa loo toogan waayay dambiilayaasha xukuman xageesi hadda ku dambeeyeen maxaase dambiyada kufsiga ee la dabdaboolayo ee ka dhacaya Puntland iyo madaxweyne Deni Kulmiye maxkamadda racfaanka ee gobolka Nugaal ayaa xukun dil ah ku riday 3 nin ee kufsaday kadibna dilay Caasho Ilyas Aadan oo ahayd 12 jir ku noolayd magaalada Gaalkacyo maxkamaddu markii aragtay warqadda ku taariikhaysan 25 bisha 2019 ee dhaawac muujinta ah ka soo baxday isbitaalka guud ee Gaalkacyo maxkamaddu markay dhageysatay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame inuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu kufsaday marxuumad Caasho Ilyas Aadan qiraalkaas oo waafaqsan qodobka 149 xeerka xadka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu markay dhageysatay Cabdishakuur Maxamed Dige in maxkamadda horteeda uu ka qirtay inuu diyaarinayay qabrigii marxuumad Caasho Ilyas Aadan lagu aasi lahaa xukunka maxkamaddu waxay cuskatay sharciyada islaamka iyo qodobada qaanuunka suuratu Maa'ida aayadda 33 suuratu Baqara 177 kitaabka nidaam al-qadaa 185 qodobada qaanuunka 401 398 440 434 garsoorayaasha maxkamadda sare Nuur Ciise Maxamed gudoomiye uu saxiixay Axmed Haadi Aadan Yuusuf xubin uu saxiixay Cabdiqani Diriya Cawl xubin uu saxiixay Cabdullaahi Cismaan Maxamuud uu saxiixay wabillahi arrintan naxdinta leh ayaa dhacday dhamaadkii bishii Febraayo ee sanadkan 2019 kiiskan oo qaatay muddo dheer oo hadda laga joogo in ka badan 8 bilood
soona maray heerar kala duwan ayaa hadda u xayiran saxiixa madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni. maxkamadda darajada koowaad, darajada labaad iyo maxkamadda racfaanka ee haddaan hadda inaga dhex galo bal arrinkaas madaxweynaha maamulka Puntland baan leenahay dawlad ma lihin madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Maxamed Deni waa maxay sababtu u haysto ilaa iyo had only waxa laga sugayay inuu saxeexo hal la dilo saddexdan laakiin ilaa iyo hadda ma saxeexin taasina waa arrin qabiilaysan Siciid Maxamed Deni waxa ay isku jifo dhow yihiin ama ay isu dhow yihiin wiilasha dhibka geystay saddexda nin laba way da yartay ninka kalena waa nin guur soo maray ninkaas already waa in dhagax lagu dilaabay isagoo nin cireystay oo konton jir ah waa nin guur xalaal soo maray waa in isaga madax laga kawiyaa si dhagax loogu wada in la dila laakiin Siciid Maxamed Deni madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ilaa iyo hadda ma ogola inuu saxeexo in la dilo saddexdan nin I don't know minaha waa arrin qabiilaysan ma oran karnaa bal noo sii wada video iyo maxkamadda racfaanka ee Puntland ayaa dhammaantood dul toogasho ku xukumay saddexdii nin ee kufsaday kadibna dilay Caaisha Ilyas Aadan. qaar ka mid ah ehelada marxuum Caaisha Ilyas Aadan ayaa waxa ay sheegeen in ay walwal xoogan ka qabaan in madaxweyne Deni uu saxiixi waayo warqadda maxkamadda si loo fuliyo xukunka waxaana ay sheegeen inuu gorgortan lacageed la galay qaar ka mid ah ehelada ragga kufsiga iyo dilka u geystay gabadhooda waxaana shaki weyn ay ka qabaan in si hoose loo sii daayo raggaasi dambiilayaasha iyaga oo sidoo kalena sheegay in raggii Caaisha dilay ay kasoo jeedaan beelaha ugu tunka weyn Puntland isla markaana madaxweyne Deni ka cabsi qabo inay mucaaradaan kana ridaan xukunka arrintan ay walaaca ka muujiyeen ehelada Caaisha Ilyas haddaan inaga dhex galo halkaas waxaa la dhahay saddexdan wiil ee gabadha dhibaatada u geystay waxa ay ka dhasheen beelaha ugu tunka weyn meenaha maamulka Puntland ama Puntland waa saddexdan nin ee beelahooda aad iyo aad bay u tungan yihiin waana beelo hubaysan Siciid Cabdulaahi Deni waxay ka baqayaan inuu mooshin ay ka keenan kana ridaan laakiin waxaan leenahay Siciid Cabdulaahi Deni oo cadaaladda u heelay markasta gabadh way ku dhashay way kula dhalatay waa dhali doontaa dabcan hatta waxa laga yaabaa inaad awow u tahay ama ay caruurtaadu sii dhaleen gabdho waxaan leenahay dulmiga lagu hayo gabdhaha yaryar ee saqiirada ee Puntland lagu kufsanayo maanta u heelay Caaisha Ilyas u heelay saxiix saddexdan nin in birta la saaro saddexdoodaba la dilo haddaad maanta u heelisid adna ilaahay baa maalinka aakhira ku heelin doona qofkii wanaag sameeyay ilaahay wanaag buu tusaa qofkii xumaan sameeyay ilaahay xumaan buu tusaa tan kale maalin waxaad furteen adiga oo maxkamadda soo istaagay oo falanqeynayay baa naloo sheegay arrintan Caaisha Ilyas laakiin ilaa iyo hadda waad ka gabanaysaa mana saxiixa lagu dili la saddexdan nin tan kale hadda daawadayaasha la wadaagana waxay tahay familkii ay ka dhalatay gabadhan marxuumadda Caaisha Ilyas dabcan dowladda deegaanka Itoobiya oo carray noloshooda halis bay gashay because saddexdan nin la rabay in la dilo gaalkacyo beelaha ugu tunka weyn bay ka dhasheen mana rabaan minaha Soomaaliya horta tan Soomaaliya wax cadaalad la dhaho kama jirto in nasri uu soo degi doono waa laga yaabaa laakiin cadaalad kama jirto siba gobolada Puntland cadaalad kama jirto deeli gabadh yar oo saqiir ah baa lagu kufsadaa deeli bay u dhacdaa in la dilo lana kufsado taasina waa wax minaha daily life-ka qofka bay la socotaa Siciid Cabdulaahi Deni waxaan leenahay waraaqda saxiix markaas saxiixid saddexdan bilta hal la dhaafiyo ka bacdi wixii imaan doono Allahu a'lam arrintan ay walaaca ka muujiyeen ehelada Caaisha Ilyas Aadan ayaa horey uga dhacday Puntland waliba intii uu talada hayay Siciid Cabdulaahi Deni dhamaadkii bishii March ee sanadkan 2019 ayaa 5 wiil oo geystay kufsi wadareed waxaa maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ay ku xukuntay dil toogasho falkan oo ahaa kufsi iyo tooreeyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo 22 bishii Febraayo 2019 shanta wiil oo lagu kala magacaabo Cabdirasaaq Axmed Cilmi Cabdirasaaq Cali Cabdi Yuusuf Cabdilaahi Xirsi Ugaas Mire Barre iyo Cismaan Maxamed Cabdilaahi ayaa dhammaantood maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho kadib markii ay dembigooda qirteen maxkamaddu maanta waxay xukuntay oo ay ku xukuntay dil toogasho ah 5 eedeysan oo kufsaday dembi kufsoodareed ku galay magaalada Gaalkacyo taariikhdu markay ahayd 22 bisha 3 2018
haddaba eedeysanayaasha dilka toogashada ay ku xukuntay maxkamadda darajada koowaad ayagoo qiraal ku ah waxay kala yihiin sidan: kow, eedeysanaha koowaad cabdirasaaq axmed cilmi ina zaynab cabdullaahi ku dhashay degan gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogashaa. eedeysanaha labaad cabdirasaaq cali cabdi ina nasro cali 18 jir ku dhashay degan gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogashaa. yuusuf cabdullaahi xirsi ina shukri cabaas 18 sano jir ku dhashay degan waxay ku xukuntay dil toogashaa. eedeysanaha afraad ugaas miro bare ina zaynab daahir 19 jir degan gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogashaa. eedeysanaha shanaad cismaan maxamed cabdullaahi ina sacdiye maxamed 18 jir ku dhashay degan gaalkacyo waxay ku xukuntay dil toogashaa. maxkamadda xukunkeeda waxay cuskatay qiraalka ay qiraal ku ahaayeen inay kufsadeen iyo suuratul maa-ida aayadda 33 iyo xeerarka kufsiga ee dowladda Puntland. nasiib daro kiiskaasi sidii maxkamaddu u riday looma fulin oo 5 wiilba waxaa lagu furtay lacag dhan $100,000 calaa shakhsi. daday asxaab dhow ahaayeen qaar ka mid ah 5 nin ee kufsi wadareedka geystay ayaa ii xaqiijiyay in qaarkood ay hadda ku nool yihiin dalka Zambia, qaar kalena loo dhoofiyay wadamo kale kadib markii xabsiga laga sii daayay. guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ayaa tan kale hadda dhalinyaradii kufsiga geysatay markii la xukumay racfaan bay qaateen, racfaan ha qaateen badankii anigu waxaan u malaynayaa hadda hal qof inuu gaalkacyo ku harin oo minaha qaar waxa lagu sheegay Uganda la keenay, qaar Tanzania la keenay, qaar Zambia la keenay. waana dhaqanka Soomaalida. Soomaaliya horta waqtigii hore dawladii kacaanka ay jirtay cadaalad way jirtay, justice wax la dhahan jiray, maxkamadda cadaaladda jirtay, laakiin wax cadaalad la dhowkama jirto gobolada, waliba siiba maamul goboleedyada, maamulka Puntland wax cadaalad la dhowkama jirto, waa la isku dulmaya. gabadhan waxay ka dhalatay Aisha Ilyas qabiilada ugu tunka yar ama ugu tirada yar qabiilada gobolka Mudug gaar ahaan Gaalkacyo. laakiin saddexda nin nimanka dhibaatada geystay 3 maalin 5 weeye waa qabiilada ugu tunka weyn magaalada Seyrawaan bay ka yeelayaan. dabcan waana sababta Soomaaliya ay u degilaanay 30 sano oo qalalaasa iyo dhibaato lagu sii jiro. dowladda Puntland 20 sano jirsatay, laakiin 20 sano ha jirsatay, laakiin 20 sano oo dulmi weeye, dulmi iyo cadaalad darro qofka la kala tirsanaya. guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ayaa si dhow ula socday kiiska Aisha Ilyas Aadan oo ahaa kiis aad u murugo badan, waxayna isweydiinayaan sababta madaxweyne Dani uu u saxiixi waayay warqadda kiiska ee miiskiisa saaran, halka dadka qaarna ay shaki ka qabaan in mar horeba raggaas lacag laga qaatay oo si hoose loo sii daayay. walaaca ugu badan waxaa qaba eheladii Aisha yar, khaasatan aabaheed Ilyas Aadan, hooyadeed iyo walaalaheed. annagu waxaanu taaganahay shariicada islaamkaanu taaganahay, qisaas baanu doonaynaa, wax kale aan ka doonaynaa ma jiro. kiiskana waa kiis dil ah iyo kufsi, laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna, ma dhaafteen mar walba dhimashadaadii, laakiin waxay ku suubiyaan baan aad iyo aad u wanahay. marar badan waxaa dhacday in social media la soo geliyo warar been abuura oo sheegaya in la toogtay 3 nin ee dambiilayaasha ah, taas oo dadka shacabka lagu marin habaabinayo isla markaana la tan kale hadda waxaan ku soo gabagabeynaynaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Aisha Ilyas waxay ka rabtaa cadaalad, waa inaad saxeexdaa waraaqda haddii ay runtu ka tahay. haddii aad lacag ka qaadatay familka wiilasha dhibaatada geystayna waa inaad dadka u sheegtaa, ama kulli ma sheegaysid, waa ku ogahay. nin afwa cunay wax shooba la dhahay, dad lacag qaadatay dan yow aday ku taala, adii aakhiradaada maalinkaad qabriga gashid baa Ilaahay ku cadaabaya. waa bahdi tusma isku duuban sidaas nabadgelyo. Saciid Cabdullaahi Dani